madaxweynaha Kenya oo badalay Xasan Sheekh Maxamuud oo kana tilmaamay in ay Kenya wax walba ka qaadan karto aba farmaajo ayaa loo xiisay xiliyadan oo kalena Kenya canaan ayuu dhagaha ka saari jiray warbixintan ay kala wadaagi doona xogta muhiimka hadalka soo yeeray William Ruto oo badalaad ku ah qarankeena isla markaana uu ku sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay in ay ka adag yihiin oo ay gacanta ugu meerin karaan waxay ka rabaan sheegaraya warbixintan oo ka faafiyo dunida meel boqotor muuqaalka qaybta faalada nagu wadaaga rabtidiina waa hagaag aan ku bilaabo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xiriirno maxadka tartiil qur'aan online madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto warbaahinta la hadlay ayaa waxa su'aal laga weydiiyay sida uu wajahayo kiiskii badda ee Soomaaliya laakiin madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto ayaa sheegay in xiligan Soomaaliya madaxweynaha joogo uu yahay in ay aad isu fahamsan yihiin wax walba ay ka dhamaysan karaan madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aysan Kenya wali badan ku haynin sida ay markaasi u wajahayaan in ay Soomaaliya ka helaan kiiska badda markaasi wadanka maxkamadda hoosafta qaramada midoobay oo fadhigoodu yahay magaalada Hague ayaa 2021 bishii October 12 waxay soo saartay go'aan ku aadan kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo murankeedu u dhaxay markii ugu horeysay ee kiiska loo gudbiyay maxkamadda ilaa markii garsoorayaasha maxkamadda ay go'aan ku dhawaaqeen William Ruto wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya madaxweynihii hore ee xiligaasi Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay go'aanka maxkamadda sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin natiijada William Ruto ayaa mar wareysi siinay BBC-da uga hadlay mowqifkiisa ku aadan maxkamadda xadka badda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo horey go'aan uga gaartay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Ruto oo dhawaan markii xilka uu loo caleemo saaray ay wada kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in arrimaha loo xalin karo si hoose isla markaana ay tahay in aysan dowladda Kenya ka welwelin kiiska badda hada Soomaaliya waxay leedahay madaxweyne aan la hadli karno madaxweyne waxa uu diyaar noo yahay inaan howlaha u qabanno sida u kala horeeyaan waan ku faraxsanahay inuu xoog saareeyo dagaalanka argagixisada adduunka oo dhan oo ay Kenya ku jirtana wuxuu kala shaqeynayaa sidii uu u burburin lahaa xigjarnimada khalaasaha wadata iyo argagixisada William Ruto isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sharaxay waxa ugu qorshaysan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna yiri muranku waa arrin ay dalka dariska ah mar walba xalin karaan waxaan hadda u baahanahay waa inaan xasilino oo amni ka dhigno gobolkeena madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in xiligan aan la joogin waqti ku haboon ka hadalka muranka xadka marba inaan howlgalno muran ku saabsan xadka iyadoo ay dhimanayaan iyadoo argagixis meelaha joogaan iyadoo xasilooni darro ay ka jirto gobolkeena waxay ila tahay inaan marka hore xal u helno arrimaha amniga kadibna waxaan xiliga ka xalin karnaa murankeena xadka ayuu yiri wuxuu u muuqday inuu rajo ka qabo dowladda cusub ee Soomaaliya inkastoo ay ka gaabsatay inuu ka jawaabo su'aal laga weydiiyay sababta ay mowduucan uga hadli waayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa xusub mudan in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay muddo xileedkiisii hore ee socday intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 ay dacwada ku saabsan muranka badda u gudbisay maxkamadda ICJ si rasmi ah waa kiiska maxkamadda lagu gudbiyay 13 bishii Juulaay 2015 xilligaasi oo ku beegnay hal sano kadib markii ay dowladda Soomaaliya ku wargelisay maxkamadda inay dacwad u soo wado
markii xukunka lagu dhawaaqay bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay madaxweynihii hore ee Kenya ayaa sheegay inuu yahay go'aan waxba kama jiraan oo markaasi halka madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu soo dhaweeyay go'aanka shaqare xogaan qad furan guriga gartay intan ay dambar nabadgeliyo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online